السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بالشوين الصوماليات آدم والسلام يا مقعي وسيد علي عبد الله حاج محمد waxaan joogaa magaalada Muqdisho maanta waxaan ku faraxsanahay inaan maantay waraysigan quruxda badan ee ugu cajinta Soomaali Peace Movement waxaan ugu faraxsanahay waxa weeye nabadda faa'iido weyn bay leedahay waxa weeyaan nabadda waxa weeyaan waa nolol waxa weeyaan aad bay muhiim nooga tahay inaan maartay nabad aan helno dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay nabaddu ay ilaashtaan taasoo ah ummadda Soomaaliyeed waxay u dhiirgelinayo in badan waxaan soo marnay wadanka burbur xoogan tan iyo 30 sano ee hor loo soo dhaafay haatan waxaan doonaynaa inaan gaarno horumar iyo wanaag marka waxaan ii sheegi lahaa nabadda inay tahay nabaddu waa waxa lagu nool yahay marka bulshooyintu waxa u fiican inay nabad ku wada noolaato meel ay qalalaasi ka jirto waa soo wada aragnay marka bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahayn inay nabad ku dadaalaan si kasta oo siyaasad iyo wax kale isbedelayso idinka inaan nabadiina ku dadaashin oo amnigiina saxatin oo dalkiina xaq dhowrtiin magacayga waa Umar Macalin Maxamuud Umar Qanciyo degmada Gaani gobolka Banaadir ayaan deganahay dhalinyarada halkan u soo shaac tagtay u soo baashaal tagtaan qayb ka ahay ma sha Allah nabadana la'aanteeda meesha lagu nasan lahayn marka dhamaanteynba inaan nabad ka wada shaqeyno wax muhiim aniga ma ah oo dhalinyarada aan nabad iska wada shaqeyno si dalkeena iyo dadkeena ay u noqdaan dad nabadeed iyo dal nabadeed dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliyeed wuxuu maanta soo booqday dhalinyarada u soo jimcaysi tagta daljirka Dahsoon runtii kuwaasoo aan isla wadaagnay aragti ku aadan sidii dalkeenno nabada maruna aanu wada gaari lahayn dhammaan dhalinyaradu waxay muujiyeen rabitaankooda ku aadan sida ay jeclaan lahaayeen inay u helaan dal nabada dadkiisuna wada jiro dhaqdhaqaaqa nabaddu wuxuu guwaadinayaa mar walba in dhalinyarada iyo bulshooyinka inteeda kale la baro nabadda laguma heli karo in dhammaan bulshada awood lagu haayo laakiin waxaan ku heli karnaa oo kaliya inaan isla fahanno muhiimadda ay nabaddu noo leedahay qof kasta oo annaga naga mid ah wuxuu u baahan yahay nabad wuxuu u baahan yahay inuu arko dalkiisa iyo dadkiisa oo isbedela waxaanan ku gaari karnaa oo kaliya in dadkeenna oo dhan ay u wada istaagaan waxay dan u tahay dadkeenna oo dhan waxayna u baahan tahay inay ka wada shaqeeyaan dadkeenna oo dhan waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaali ah caqabadihiisa nololeed inuu ku xalliyo wada hadal isjacayl isu dulqaadasho isu tanaasul waxaan diidanahay qofka Soomaaliga caqabadiisa inuu ku xalliyo in uu isticmaalo qaab colaadeed waxyaabaha ugu muhiimsan ee nabadda aan ku ilaalin karno waxa kamid ah in aan dadkeena barno muhiimadda ay leedahay haddaba dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato wacyigelinta nabadda dhammaan dhalinyaradana waxaan rabnaa inay ka wada qayb qaataan ku soo biiraan u ololeeyaan nabadda waa mustaqbalkooda ayaga birri u baahan maalinta ku xigta u baahan waa mahadsantihiin